Bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadla mowduuc ku saabsan guurka ka hor doorashada ninka. Insha Allah waxaan soo gelin doonaa muuqaalo taxana. Waxaan ku baran doonaa sida ku kasban lahayd ninkaaga, maxaad u baahan tahay si aad u kasbato iyo waddooyinka aad qaadi lahayd. Halahaas ayaan taxana ku baran doonaa. Tanina waa qaybta koowaad. Daawasho wacan. Magacaygu waa Shamhaad Maxamed. Channelkaad naga daawanaysaan Shamhaad Xaaji. Fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka like saarto, la wadaagto asxaabtaada, subscribe noo saarto si aan u soo badino muuqaalo caynkan ah. Anigana waxay tahay dhiirigelin si aan la wadaago mowduucyo caynkan ah. Gabadha inta aanay guursan ka hor ku dadaashay inay doorashada wanaajiso. Gabadha sidaa yeeshaa waxay cagta saartay dariiqii guusha iyo liibaanta. Islaamkuna arrintaa wuu inagu baraarujiyey inaguna dhiirigeliyey. Rasuulka naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee wuxuu yidhi, haddii uu idin yimaado nimaad raalli ka noqotaan diintiisa iyo akhlaaqdiisa u guuriya. Haddii aad sidaa yeeli weydaan waxaa dhulka ka dhici fidno iyo fasaad badan. Sifada ninka wanaagsan markaa waa diin iyo akhlaaq wanaagsan. Gabadhiyay haddaba ninka ku dooro oo ku qiimee labada arrimood, oo haddii aad ka hesho ku dhig oo yaanu ku dhaafin. Taabici weyn ee Xasan al-Basri ayaa ninkula dardaarmay oo ku yidhi, gabadhaada u guuri mid diin u saaxiib ah. Haddii uu jeclaado wuu karaameyn, haddii uu nacana dulmin maayo. Laakiin maanta marka aad fiiriso bulshadeena waxaad arkaysaa in dad badani ay ka dhigteen guurka mashruuc ganacsi oo ninka lagu qiimeynayo muxuu adduun hayaa, oo la iska indhatirayo diintiisa iyo akhlaaqdiisa. Bal u fiirso xadiiska, nin ayaa soo maray qolo meel fadhida. Rasuulka ayaa weydiinaya oo odhanaya, ninkan bal ka waran maxaad ka odhan lahaydeen? Waxay yidhaahdeen, ninkaasi wuxuu mudan yahay haddii uu gabadh kaa soo doono in loo guuriyo, haddii uu shafaaco ku weydiistana in laga aqbalo, haddii uu hadlana in hadalkiisa la maqlo. Kadibna wuu aamusay. Nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. Nin kale oo ka mida fuqarada muslimiinta ayaa haddana soo maray isla bartii. Rasuulkuna wuu weydiiyey oo wuxuu yidhi, bal kana ka waran maxaad ka odhan lahaydeen? Waxay yidhaahdeen, kani wuxuu mudan yahay in haddii uu gabadh soo doonto in aan loo guurin, haddii uu shafaaco kaa dalbadana in aan laga aqbalin, haddii uu hadlana in aan hadalkiisa la maqlin. Nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee wuxuu yidhi, kani wuxuu ka khayr badan yahay dhulka mugii. Yacni kan dambe ee miskiinka ah ayaa kii hore ka khayr badan dhulka mugii. Taas macnaheeda maaha in aan gabadha muslimada kula talina in ay guursato nin faqiir ah, laakiin waxaan u jeednaa nin faqiir oo wanaagsan ayaa kaaga khayr badan nin qani ah oo faasiq ah. Waxaa arrintaa tusaale inooga filan salafkeennii wanaagsanaa. Kani waa Saciid binu Musayyib oo ahaa taabici caan ah oo caalim ah oo zaahid ah. Wuxuuna gabadhiisii oo lagu yaqaanay qurux, edeb iyo diin u diiday inuu guuriyo Waliid bin Cabdimaalik oo ahaa wiilkii uu dhalay khaliifada muslimiinta. Markaasuu u guurinaya mid ka mid ah ardaydiisii oo lagu magacaabo Abaawadaaca, oo meherkeedana uu ka dhigay 2 dirham ama 3 dirham. Fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka like saarto, la wadaagto asxaabtaada, subscribe noo saarto si aan u soo badino muuqaalo caynkan ah. Anigana waxay tahay dhiirigelin si aan la wadaago mowduucyo caynkan ah.